صابتا ما وصل لم هذا لو سواه يعني كمان يلا سريع المطبن شيرتنا على راسي بعض شيرتنا في البستان بدأ على شيل جرايد سلامتنا دمانتين كوبات على صوبته تلفوننا ندور على الكرسي اسمه هو يربع معي وحياه بدل ما رمينا عدينا ولكن حريري عبد الدانتو كوبات إلهي بمهدله من الكوبات أيضا عينيا أصحاب قارئ البرنامج المغربي بعد عبد وقول ولا في عبدي عبد مرة بحكمنا وما سنتور thank you أيه أنا دي أتصل وراك سبحان شيء والله يروح عيا يصير اللوف سريع عمل لوف marka walaalkay suuqada sidoo sheegay khalad yar oo ayay baraha bulshada si kala u qaateen wax dhib oo jirin ama jirin wax dhib oo dhacay amniga naga aadayaa loo sugay dowladdu si fiican ay noo soo dhaweysay ciidanka amnigu si fiican ay noo soo dhaweeyeen khaladaad yar oo ka dhacay hoteelka ayaa si kale loo rogay wax dhib oo dhacayna maysan jirin dowladdu sharafkeed qaadanaynaa isbaamakeena si wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen iyo bulshada xamar dhammaantood qaybaheeda kala duwan si heer sare ay noo soo dhaweeyeen dad aan aad u jecelahay xabaan aynu jecel haweeneyna la soo joogayaan marka khalad yar oo dhacay in si kale loo fahmo maanta ma qurux badno markaas صلى الله عليه زي ولا في الحرير مركوبات وسلامة الدمانتي حال برنامج بان لهاي سرعوا وجيدين برنامج كسوبر خليجي برنامج ساعات جنبي يخلي dad badan baa waxay leeyihiin in la soo weerarayo ayaga la target gareynayo iyaga in la dilo dad badan baa ku sheekeynaya weliba qolada social media waxyaabo badan inaad sumcada dad badan lagaga dilo wax yar oo qarash yar lagu helayo ama view yar oo helayso ama YouTube aad wax ka helayso in dadka sumcada looga baabi'iyaa waa dadkii soo dhaweeyey ayagoo isku duuban waa dadkii soo dhaweeyey waa dadkii inaan xamar imaan waa dadka amniga anaga nabada ayada sugayay dad baa labis koorada la soo galay xabada la soo galay mashiinka wax baarayay hal shaqsi oo shacab bisbaarada ma soo gelin wax aan la hubin ma soo gelin qof walba banaanka dhowr checkpoint lagu soo marinayay kadib mashiinka la soo mariyay meesha la isugu wada yimid marka xabada dhacday waxay ahayd askartii meesha joogtay hoteelka inaan kamida hoteelka amniga u qaabilsanayd inaan kamida xabadda ka qaraxday ee xabad uu qof ku ridayna ma ahayn xabad uu wax ku leynaya ama annaga uu nagu tarbigelinayna ma ahayn meeshu jaan bay noqotay dadkii baa soo buuxdhaafshay stagekii baa dadkii ay soo fuuleen waxaa dhacday in xariir uu heeska uu ku jira ay stagekii dadku ku soo yaaceen kadib markuu soo cayn inankii askarigaha ilaalada hoteelka iyo inan shacabaa isqabsadeen markay isqabsadeen ayaa inankii shacabka ahaa ayaa inankii askariga ahaa bay isaga dhaafeen gacan qaad yar baa isu dhacay inanka askarigana wuxuu ku haystay biskoolad buu xagga dambe ku haystay sax maa cabdi ilaalada hoteelka ayaa biskoolad xagga dambe ku haystay biskooladda ammaankeedana wuu furnaa
markaa biskoolada markuu u foorarsaday dadkii kala qabay yiri ayay shaarkiiba inankii ka raacay marka biskooladiiba soo muuqatay inan kala damcay malaha inuu shaarku u jiido samay marka wuxuu mooday in lagala baxayo marka gacantu ku dhuftay gacanta markuu ku dhuftay biskooladina dhulka ku soo dhacday sidii bay ku qaraxday marka inankii askariga ahaa ee meesha joogay inankii askariga ahaa ee meesha joogay ay isla asagiiba lugta kaga dhacday marka wax si kale wax loo fasiro ma ahan si kalena in wax loo dhigdhiga ma aha anagu cidna soo targadgaraysan ma jirto cidna soo waxaysan ma jirto kaasaan u sheegayaa shacweynaha cabdi ku dhaweyna waxa weeyaan horta siduu suldaan sheegay weeyaan siduu walaalka suldaan sheegay weeyaan xalay wixii dhacay wax weyn oo hadda saa loo sii buunbuuniyay ma aysan ahayn waxay ahayd wax yar oo khalad yar oo qof ma garanaysaa ka dhacay ayuu ahaa wax ku talagal oo dad soo abaabuleen oo dad ka soo shaqeeyeen ma aysan ahayn meesha amnigeeduna wuu sugnaa kale waxaan u sheegaynaa dawladdu sharaf bay leedahay ciidanka dawladdu ammaanka koray ilaalin horta wax ciidan gudaha ma soo galin dawladdu leedahay shacabun baa soo galay siduu suldaan sheegay hal shakhsi oo kamid ah ilaalada hotelka ayuu ahaa ninka biskoolada watay taasna aad ba loogama wareegay asaga qofka ka dhacdayna asaga ah biskoolada asaga ayayna ku dhacday isla asagan bay ku dhacday ha marka shacabka Soomaaliyeed waxaan cadeynaa fanaantan xafladii ay qabteen wax haba yaraata dadka shacabka soo gaadhay ma jirto oo wax ku noqdo annagana waa annaga nabad qabnay ayagina waa kuna nabad dadka social media ha beenta iyo propaganda ku wada ha joojiyaan baan leenahay waxa weeyaan markaas حرم نمط قطعات عارف نمط قطعات والله صيرت قطعات dadku waxay leeyihiin ma nabad qataaniya ma horta xabad ka soo waday ma ahayn xabad sida walaal soo sheegay qaablu ku dhacay kala meesha jaamna way ahayd dadka dawladda askarta amniga dhammaan shacabweynaha xamar karaama noo haynaa waa dad aan jecelahay waa dad hayagii waa dad si fiican noo soo dhaweeyey waa dad nagu dhaliyay inaanu sii joogno baraha bulshadu inay si kale ay u fasiraan ma qurxan waa meel nabad ah nabad baa taala wax yaroo ka dhacay ayay baraha bulshadu si kale u buubuunayaan qof yar ku helaya sida suldaan sheegay inuu dadku sumcadda ka dilo dawladda sumcadda ka dilo waa ka daamin sumcadda ka dilo aad ayay noola farxin tahay mana qurxan markaas ado fiyo helaya inaad dadku sumcadda u baabiso taasna barayaasha bulshada ayaa ku dhalacaynaya dhaliishaan u jeedinaya حاويان مركز نعم أجل سوية وضع نبض سوق المستقبل حاويان مركز حمر شعيلا نقطعني إن نقبح نبض مر بس نقول دونا كل هيدا وضد قلب في عم وضد قلب وناسن وحضر عين وجه قدام شركة ونقرأ كان شرطي ذي تسمين كنا نوزان ما وحصلوا هذا يا نصر يا شعب لكن وحاولنا يمكن وانا وصلت كان دولة بايدين سود وسيدين دجسي الله هذا نفس شرف بايدين سود وسيد ما دولة وي محسنت الله هذا ayaga u degan yihiin ma garanaysa marka dadka yani luqluq ka sugan amniga ayaga sugan laakiin in la yiraahdo dawladda iyo shacbi wax la isku dhufto ma aha dawladdu sharaf ay mar walba naga mudan tahay iyadoo isku duuban anagoo shacabkana ammaan iyo bogaadin ma u jeedinayna waa shacabka ayaga waa jecelnahay laakiin dadka sida khaldan wax u fasilaya waxaan leenahay walaalayaal ma fiicno Soomaali baan nahay isku duubanahay in la iskala qaado ma qurux badna dad wada dhashay baan nahay dad walaalaha baan nahay aad baa mahadsantiin waa nabad qabnaa dawladda sharafta waa salaamina isku duuban shacabkana waa salaamina aad baa mahadsantiin dadka ayagii dalka ayagii wada joognaa dad baa wax kala ka sheekeynaya aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum hawshu waa halkaas bay maraysaa xaaladdu waa shil iska dheh habaqlays maantin shil iska dheh waxaa kaloo salaamaya saaxiibka cabdinuur nahaaye madaxsaraabna soo dhaweynta nada aad uga qayb qaatay asxaab kaloona halkan ku xusi karaynin oo aad u badan waxaa weeyaan aad iyo aad shacabweynaha xamar rabiic حمد أضف هذا هالكلام يقول صوت جيد ما بيحكي كريش ما يحاول أنا ما هالعلنا ذات كلام هالعلنا أنا ما قرنا ما كان نكرر لي سكوري شيء ما ربيع أنا ما هالعلنا ولا لك عنده إذا وذكرنا سان سينا أدنى ما هالعلنا أيضا ولاش نمونا أيضا أدنى ما هالعلنا أيضا كحالين مهمة كقادة طيب برامجك وحكوا لنا أدنى ما هالعلنا ضمان قيبها أي كوبنت الدولة ده ورنتي سيها قر العانة وقشنا ويرشن ولا علينا أو ضل كودي قرب تاجن ilaa iyo haddana garab taagan oo heelan oo habeen iyo maalin la joogaan
waa mid taas xagga dawladdu wax oo shuud ma saarno sidii quruxda badneeda loo soo dhaweeyay ilaa haddeertana soo dhaweynta u socoto xariir weyn maqla ha dawladda gacanta ku haysa dawlad bay u degan yihiin nimanka youtube-yada le niyo ilaahay ha naga qabto ma fahamteen nimanka youtube-yada le oo balaayada karbiyada joojinaya oo shacabkii iyo isku diraya dawladdii iyo fanaaniinta isku keenaya ilaahay ha naga qabto ma fahamteen lacag fiicanna allaha siiyo oo ku imaan qabaan marka dawladda aad baan halkan ugu sameeyay special waxaan aad halkan ugu salaaminaa maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan howlwadeennada ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha aad baan u salaaminaa qosas ma oo hawshan wax badan ka shaqeeya marka halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa wixii kale billahi tawfiiq gadaal baan ka soo sheegi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh